اسبوعا waxaa lagu dhawaaqay xilliga la daawan doono filimka Pushpa 2 ee markaasi Allu Arjun hogaamiye ka yahay hore waxaa loo daawaday filimka Pushpa The Rise kaas oo markaasi ahaa filim blockbuster noqday Allu Arjun markaa uu ku xarakeeyay haddana waxaa markaasi la sameyn doonaa filimka Pushpa qaybtiisii labaad iyadoo markaasi lagu dhawaaqay in la daawan doono 15 Agost 2024 markaas oo ay ku beegan tahay maalmaha xurriyadda dalka India filimkan waxaa markaasi uu ahaa filim aad loo sugayay waxaan hadda markaasi rasmi ah loo shaaciyay maalmaha xurriyadda India la daawan doono waxayna markaasi ku aadan tahay xilligii loo qorsheeyay in la daawado filimkii Singam Again ee Ajay Devgan iyo Rohit Shetty markaasi ay ku mideysnaayeen iskastaba haatee taas waxaa markaasi ay keentay in hadda kooxda filimka markaasi Singam Again iskale ay go'aan markaasi ku gaarto in filimka dib loo dhigo Rohit Shetty waxaa markaasi uu tilmaamay in aysan wali shaqada bilaabanin soo kale waqti badan markaa ay u baahan yihiin saas darteedna filimkii Singam Again ee Ajay Devgan dib ayuu u dhacay waxaana xilligii daawan la hadda qaatay filimka Pushpa 2 oo markaasi hogaamiye ka yahay Allu Arjun sidoo kale asbuucan laga soo bandhigay kaartadii koowaad ee filimkan isagoo markaasi gacanta ku haysta midi sidoo kalena farantiyaal badan markaa ay ugu jiraan warar kale waxaa markaasi kamid ah filimka Salaar qaybtiisa koowaad ee markaasi loo yaqaano Ceasefire ama xabad joojinta dib markaasi isagoo u dhacay kooxda filimkan iskale shirkadda filimkan iskale lagu magacaabo Homefall Production taasoo ah shirkaddii samaysay filimkii weynaa ee KGF qaybtiisa koowaad ee qaybtiisa labaad waxaa markaasi ay shaaciyeen in directorka filimkan Prashant Neel uu markaasi u baahan yahay waqti markaasi dheeri ah si markaasi ay ula imaadaan wax markaasi nuxur leh aadna markaasi u qiimo badan Prashant Neel oo ah directorka filimkan waxaa markaasi ku dooday inuu u baahan yahay waqti ku filan maadaama uu rabo inuu India markaasi ku qabsado mar kale filim maas ah soo kalena leh wax walba oo markaasi filim lagu daawan lahaa product fiican oo daawasho kadib ayuu markaa doonayaa in directorkan uu leeyahay taas waxaa markaasi ay keentay in filimka markaasi dib ugu dhaco xilligii daawan lahaa oo ah 8 September waxaana markaasi hadda la sugayaa in lagu dhawaaqo xilliga la daawan doono filimkan maadaama wali aan la shaacinin xilliga markaasi dib u dhaca filimkan uu gaarsiiyay in la daawado